fadhigii saakay golaha gurtida Somaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha gurtida Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa markii uu fadhigu furmay waxa uu gudoomiyuhu guddi hoosaadyada golaha ka codsaday inay warbixinahooda ku wareejiyaan xukayaha guud ee golaha gurtida Somaliland si uu isugu soo barido warbixinahaasi golaha gurtida Somaliland ayaa galay fasax dhan muddo 2 bilood ah waxaanu gudoomiyuhu sheegay in ay soo noqon doonaan 27ka bisha afraad ee sanadkan ilaahay dabbidaaf iyo barwaaqaha inooga dhigo bisha ramadaana kaabigeena soo saartay khayr badan bay leedahay ilaahay hayna waafajiyo ismaha inoogu dambi dhaafo waayahay guddiyaashii hawsha inoogu maqnaayo warbixinadiinnii waxaa ku soo ururinaysaan xokaynta guddiyaashii xokayntaa ku soo ururinaysaan xokaynta isku dubaridaysa halkaasaa idinkaga dhammaato waxaynu yeelaynaa shaydaan wax la yeeli يا وحبل الشيدين مايه حكيمت كسوري سوى قرارة وهي هي حكيمت يدا وحي هاوشا كقبسن سمركاو إذا كو يدا كوري كو فاسحين البدلين هاول كي يداي ما طول صبش ليش اللحية اللي تنكيد مفكر كمان الساعة فصح لا بلاد فصح على الجلية لحية اللي لا تنكبر عبطة تضوي اللي لا تنكبش يبيضنا ولا صون غري الديرة يلقاس يا تيخاد لا كدو لا تيفوق شيخ دوا دعيان وكذب الطورة لا هو أقبل وإلى بشا إبريل تدبير لما تنكيده وبالله التوفيق شركة ويروح إليه